sababta hamigaaga u gaari laadahay waxay tahay waxa kugu adag joogteynta waa ogahay waxa isleedahay caajislow tahay caajislow ma tihid waxa kugu adag bes joogteynta adduunkan aan ku noolahay dadka inta u badan weligood hamigooda ma gaaraan sababta wax kale ma ahan waxa ku adag inay wax joogteeyaan taasna waxay keentaa weligood hamigooda inaysan gaarin waxaasay jecel yihiin way bilaabaan haddana muddo markay wadaan way joojiyaan taasaa keenta weligood hamigooda inaysan gaarin adiga fiidiyowga fiirsanayo waxaa laga yaabaa cayilkan ama calooshan weyn oo ku dhibtay inaad jeclaan lahayd hal mar inaad isdhaafsiisid mar walba daayida bilowda daayidkaas muddo markaa wadid haddana waa joojisaa sababtoo waxa kugu adag joogteynta taasna waxay keentaa weliga hamigaaga inaadan gaarin fiidiyowgan waxaan kuu sheegaa 5 waxyaabood 5tan waxyaabood haddii aad fahantid waxa kuu fududaanayso inaad wax joogteysid markaa wax joogteysidna waxa kuu fududaanayso hamigaaga inaad gaarto tan koobaad oo muhiimka ah waxay tahay waa inay jirtaa sabab adag oo kugu khasbayso hamigaas inaad gaartid hamigaaga inaad gaartid waxa ka horeyso shaqadaas inaad qabatid waxa ka horeyso inay jirto sabab adag oo kugu khasbayso shaqadaas inaad qabatid sa hamigaaga u gaartid haddii sababtaada adkeen markaa shaqada laga rabo way kugu adkaanaysaa sababtoo daacad ma ka ahan tan inaad fahansan tahay waa qasab haddii sababtaada aysan ahayn mid adag markaas excuse-kaaga wuxuu noqonaa mid adag mar labaad aan ku soo celinaa haddii sababtaada aysan ahayn mid adag markaas excuse-kaaga wuxuu noqonaa mid adag oo markaste markaa wax bilaawdid cudurdaar ayaa la imaanaysaa sababtoo sabab adag oo waxaas aad suubinaysid kugu khasbayso ma jirto talabaad oo muhiimka ah waxay tahay waa inay ku kala baxsan yihiin farqiga u dhaxeeyo motivation iyo discipline firi hamigaaga inaad gaartid waxaa ka horeyso shaqadaas haddii aad qabatid markay kaa qabato bes markaas weligaa hamigaaga ma gaaraysid motivationka ma shaqeeyo sababta motivationka realistic ma ahan motivationka wuu yimaadaa wuuna baxaa ma ahan wax kugu khasbayo waxaas laga rabo inaad qabatid disciplineka iyo consistencyga way wala socdaan disciplineka waa kan keenayo waxaas laga rabo inaad qabatid disciplineka waa kan keenayo nafta inaad qasabtid disciplineka waxaan dantaada ahayn kan dhahayo waaye maya waxaan dantaada ma ahan marka disciplineka iyo consistencyga way wala socdaan hadduu discipline jirin consistency ma imaanayo consistency hadduu jirinna natiijo ma imaanayso tan saddexaad oo muhiimka ah waxay tahay hamigaaga inuu yahay mid xaqiiqada ku salaysan waa muhiim inaad tahay qof realistic ah hamigaaga inaad gaartid waxaa xaqiiqo ah waxaa ka horeyso shaqo badan shaqadaasoo weli la rabo inaad si joogto ah u suubisid markaas kadib ayaa hamigaaga gaaraysa mararka qaar waxaa arkaysaa qof aad u cayilan miisaankiisa badan yahay jirkiisa in ka badan 40% ay baruur tahay haddana qofkaas muddo gaaban ayuu wuxuu rabaa inuu 6 pack yeesho qofkaas oo kale xaqiiqada uu ka fog yahay markaas saasoo kale xaqiiqada uga fog tahay markaas inaad wax joogteysid way kugu adkaanaysaa sababtoo shaqada marka aad bilaawdid oo aragtid inaysan ahayn saa wax u maleynaysay oo shaqo badan laga rabo waxaana waqti qaadanayaan markaas niyada ka jabayso waxaana imaanayso inaad joojisid markaa joojisidna hamigaaga ma gaaraysid marka waa muhiim inaad tahay realistic marka aad tahay waa og tahay shaqada ku sugayso inta ay leeg tahay waqtiga ay qaadanayso markaasna waa ku tala gashay markaasna joogteynta way ku fududaanaysaa tan afraad oo muhiimka ah waxay tahay inaad ku xisaabtantid mararka qaar inay wax ka khaldamayaan firi hamigaaga inaad gaartid waxaa ka horeyso shaqo badan oo laga rabo si joogto ah inaad u suubisid shaqadan markaa ku guda jirtid waxaa xaqiiqo ah waxyaabo badan oo aadan ku xisaabtamin inay soo baxayaan bini'aadan aad tahay mararka qaar wax way kaa khaldamayaan laakiin haddii wax kaa khaldamaan macnaheeda ma ahan inaad fashilantay wax markay kaa khaldamaan xalaal calayg dheh berri shaqada
meeshii kasii wad mararka qaar waxaa arkaysaa qofaa diet ku jiro qofkaas dietkii hal maalin ayuu ka khaldamaa markaasuu qofku wuxuu isleeyahay dietkii waa kaa khaldamay oo wixii ka kacayay noqdeen markaasuu wuxuu bilaabaa maalinta ku xigtana wax qashin inuu sii cuno maalinta kusii xigto wax qashin inuu sii cuno markaas kadib qofku wuxuu arkaa asoo bilo qashin cunaayay oo meeshii uu ka yimid meel kasii dheer gaaray saasoo kale ma loo baahna haddii hal mar wax kaa khaldamaan xalaal caleeg dheh berri shaqada meesha kasii wad marka ogow mar kaste markaad wax qorsheysid ogow qorshahaas 100% ma noqonayo mararka qaar waxbaa kaa khaldamaayo mararka qaar waxyaaba aan ku xisaabtamaynin ayaa soo baxaayo tan shanaad oo muhiimka ah waxay tahay inaad leedahay qorshe ama system firi qorshe la'aantiis meel dheer ma gaaraysid qorshe markaa leedahay ama system marka aad leedahay shaqada laga rabo waxay isku bedelaysaa routine marka ay noqotona inaad joogteysid way kuu fududaanaysaa tusaale ahaan diet ku jirta raashinka 3 maalin ee soo socoto aad cuni lahayd haddaad sii diyaarsatid taas waxay keenaysaa 100% dietkaas aad ku jirtid inuu kuu fududaado laakiin haddii aad raadisid waxaad cuntid markay gaajo ku qabato markaas dietka inaad sii wadid wuu kugu adkaana qorshaha waa muhiim waa inaad og tahay waqtiga habeenkii seexanaysid waa inaad og tahay waqtiga jiimka aadaysid waa inaad og tahay weegii maalmaha aad raashinka suubinaysid markii waxaaga saas kugu qorshaysan yihiin shaqada laga rabo way kuu fududaanaysaa marka system marka aad leedahay shaqada laga rabo waxay isku bedelaysaa routine waxaan markay noqdaana fudayd ay noqonayaan fudayd markay noqdaana consistency-ga wuu kuu fududaanaa taasna waxay keenaysaa hamigaaga inaad gaartid marka adiga fiidooga fiirsanayo hadaa rabtid isbedel dhab ah inaad suubisid anaa diyaar ku anaa coach ku noqonayo ani markaan ku leeyahay coach aan ku noqonaa macnaheeda ma ahan barnaamij inaan ku suubiyo oo ku soo diro oo meeshaas isku keen dambeynayso noloshaadan ka mid noqonaa wax walba anaa soo diyaarinayo adi waxa laga rabaa in wixii aan soo diyaariyay ay suubisid isla markaasna warbixin isoo siisid haddii daacad ka tahay waxa igala soo xiriirtaa emailkan ama waxa si toos ah igala soo xiriiri kartaa website-keena mideeda kale gadaasheeda waxa ka muuqdo supplements badan oo kala duwan haddii ay Europe joogtid oo supplements u baahan tahay anaga waxaan haynaa supplementska suuqa ugu fiican proteinada ugu fiican garaatiinka ugu fiican pre-workout ugu fiican shirkadaha suuqa ugu fiican alaabtooda bes ayaan gadnaa haddaad wax u baahan tahay oo aad Europe joogtid website-keena ayaa ka soo dalban kartaa si sahlan ayaa gurigaaga lagugu keenaa waa ogahay wali lacagtii ma ku soo dhicin anaga waxaan isticmaalnaa Klarna lacag hadaadan haysan wax dhib ah ay leedahay ma lahan wadanka aad joogtid ee Klarna ka shaqeynayso Klarna ku qaadan kartaa 3 bari kadib ayaa lacagta iska bixin kartaa iyadoo 1 shilin oo riba ah uusan ku korin aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada fiidiyowgana daawateen haddii ay jiraan waxaa jeclaan lahaydeen in fiidiyoo kasoo suubiyo commentiga igu soo qora ha iloobina fiidiyowgan like ina sartaan commenti kasoo bixisiin asxaabtiina u share gareysaan mideeda kale haddaa weli subscribe dhihina subscribe dheh aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa noo balanaa fiidiyowgan fiidiyowga ku xigo balanteen waa caafimaad iyo muruq